السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu ku dhashay Maxamed Ibraahim koonfurta Nuuba oo dhacday waqooyiga dalka Suudaan. wuxuu dhashay sanadkii 1946 laakiin halkaani kuma korin waxna kuma baranin. waxay reerkoodu u guureen dalka Masar waxayna gaar ahaan degeen waqooyiga Masar. halkan ayuu Maxamed ka bilaabay safarkiisa waxbarashada wuxuuna ku biiray mid ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee ku yaalay waqooyiga dalka Masar. markii uu Maxamed ka qalin jabiyay dugsiga sare wuxuu ka mid noqday arday si heer sare ah oo u qaabilay madaxweynihii hore ee dalka Masar Jamaal Cabdinaasir. maadaama uu helay imtixaanka natiijo sare Maxamed ayaa iska diiwaan geliyay jaamacadda Al-Iskandariya gaar ahaan wuxuu ka mid noqday ardayda kulliyadda handasada. 4 sano kadibna wuxuu gacanta ku dhigay shahaado baaj ah oo dhanka tumaalnimada ah. kadibna wuxuu sanadkii 1974 waxbarasho sare u doontay dalka Ingiriiska. markii uu galay UK wuxuu ku biiray jaamacadda Bradford wuxuuna jaamacaddaani ka qaatay shahaado master ah oo dhanka korontada ah. halkaani kuma joojin waxbarashadiisa haddana wuxuu go'aansaday inuu ku biiro jaamacadda Birmingham waxaana u suura gashay inuu jaamacaddaani ka qaato shahaado PhD ah oo dhanka isgaarsiinta ah. markii uu Maxamed shahaadooyin badan oo dhanka tumaalnimada ah gacanta ku dhigay ayuu bilaabay inuu baadi goobo shaqo mushaar fiican leh. wuxuuna shaqo ka helay shirkadda isgaarsiinta ee British Telecom BT. wuxuuna Maxamed muddo gaaban gudaheed ku soo baxay mid ka mid ah shaqaalaha ugu wanaagsan ee looga jecel yahay gudaha shirkadda BT. taa oo keentay in Maxamed jaga u sii dhiibto ilaa kolkii dambe uu noqday madaxa qaybta isgaarsiinta telefoonada gacanta oo xilligaasi cusbay. wixii intaa ka dambeeyay Maxamed wuxuu bilaabay inuu samaysto shirkad isgaarsiineed. wuxuuna dhahay asigoo ka sheekeynaya arrintaani, markaan yaraa waxaan aad u jeclaa ganacsiga caalamiga ah. aad ayaan u danayn jiray in aan la socdo dhaqdhaqaaqyada maalgelineed ee ay ka wadaan maalqabeennada reer Yurub qaaradda Afrika. dhanka kale sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashada waxaan yaqiinsanaa in Afrika noqon doonto aag ay ku hardamaan shakhsiyaadka iyo dowladaha doonaya inay ganacsigooda ka helaan macaash badan. sidoo kale waxaa jiray qiso igu riixday inaan Afrika xoolaheeda ku maalgashto, taa oo iiga sheekaysay gabar Isbaanish ah oo waxaan iskala baran jirnay jaamacadda. waxayna ugu dhahday waxaan guursan rabaa nin Hollandays ah oo taajir ah kaa oo asigoo wax yar oo lacag haysta la tagay Afrika kadibna maalgashi ku sameeyay lacagtii yareed. 5 sano kadibna ku soo baxay mid ka mid ah maalqabeennada ugu taajirsan dalka Netherland. Maxamed ayaa hadalka gabarta ka helay dhiirigelin waxaana kacay dareenkiisa iyo rabitaankiisa uu ku doonayo inuu Afrika wax un ka sameeyo. dhanka kale Maxamed wuxuu nacay shaqaalnimada waayo wuxuu muddo 10 sano ahaa shaqaale mushaar leh qaata. maalin maalmaha ka mid ah ayuu arkay maqaal dheer oo ka sheekeynaya dhibka haysta bulshada isgaarsiin la'aanta ku nool qaaradda Afrika. wuxuuna maqaalka ka sheekeynayay in dadka waqti badan kaga lumo wax haddii uu jiri lahaa telefoonka gacanta si sahlan oo dhib la'aan ah ku xalismi lahaa. markii uu dhameeyay Maxamed akhrinta maqaalka waxaa cirka isku shareeray dareenkiisii iyo rabitaankiisii. wuxuuna maqaalka kala dhex baxay inuu faa'iido badan yahay telefoonka gacanta. xilligaasi waxay ku beegneed dhammaadkii 80-meeyadii. dhanka kale shakhsiyaadka maalqabeennada ah ee ku nool bariga iyo galbeedka waxay ruqsooyin ka qaadanayeen dowladaha waxayna u tafaxiidanayeen abuuridda shirkado isgaarsiineed. hadafkoodana wuxuu ahaa in ganacsigaana cusub ka helaan macaash badan. laakiin ma jirin haba yaraatee qof doonaya inuu Afrika xoolihiisa ku maalgashto dhanka isgaarsiinta waayo Afrika waa meel faqri daran ka jiro. ayadoo arrintaani jirto ayuu Maxamed go'aansaday in uu hore u galo suuqa cidlada ah ee Afrika. dhanka kale waxaa jiray khubaro Maxamed kula taliyay inuu iska dhaafo maalgashiga qaaradda Afrika waayo waxay ku dhaheen khubarada, Maxamed haddii aad gasho suuqa isgaarsiinta Afrika waxaa la kulmi doontaa caqabado badan oo ugu horreyso bixinta laaluush iyo in aad macaamiishaada cusub u iibiso ama bilaash ku siiso telefoonada gacanta. inkastoo Maxamed waxaanu dhibaato ah looga digay haddana wuxuu hoosta ka xariiqay inuu suuqaani ka war doono. wuxuuna sanadkii 1989 gudaha dalkiisa hooye ee Suudaan ka abuuray shirkad oo u bixiyey MIS. wuxuuna shirkaddaani ka gaaray guulo waaweyn. dhanka kale wuxuu wada shaqayn ballaaran ka helay shirkadaha isgaarsiinta ee ugu weyn dunida. Maxamed ayaa mid ka mid ah macaamiishiisa oo hantiilo ah kula taliyey inuu shirkad isgaarsiineed ka samaysto dalka Uganda, laakiin ninkii waa uu diiday inuu qaato talada Maxamed. diidmadaasi oo Maxamed ku qasabtay asiga naftiisa inuu galo suuqa isgaarsiinta ee dalka Uganda.
wuxuuna gudaha dalka Uganda ka sameeyey shirkad oo magac ugu dhigay MIS Cellular, wuxuuna ku shaqo bilaabay 5 ruux. muddo yar kadibna wuxuu shirkadiisa ka bedelay magacii asigoo u bixiyey Celtel. bilowgii shirkadani waxay u baahneed raasumaal xoog leh oo lagu maalgeliyo, laakiin Maxamed ma haysanin xoolahaasi tirada badan ee lagu socodsiin lahaa shirkadani curdanka ah. waxayna shirkadda u baahan tahay si howlaheeda si habsami leh ugu socdaan 5 sano ee soo socota lacag gaaraysa $415 milyan. laakiin Maxamed wuxuu haystay $15 milyan. dhan kale Maxamed waxaa ka hor yimid caqabado badan, waxaana ka mid ahaa mashaakilaadkaasi asigoo aan aqoon iyo khibrad u lahayn maamulidda shirkadaha. wuxuu ahaa nin tumaal ah oo ku fiican dhanka farsamada. waxaa kaloo jiray in Afrika xilligaasi ka jireen afgembiyo iyo ammaan darro, madaxdana ku waalneed kursi jacayl iyo qaadashada laaluushka. intaa waxaa u sii dheereed bulshada oo kalsooni buuxda ku qabin adeegga cusub ee shirkadda, maalgeliyaasha oo ayagana ka dhacsan ama aan aaminsaneen in halkan laga heli doono macaash mug leh, iyo dowladihii oo aan diyaar u ahayn in ay bixiyaan ruqsadaha. waxaana dhibaato ah ayaa hortaagnaa Maxamed. wuxuu ku faraxsanaa in suuqa isgaarsiinta Afrika kula jirin shirkad kale oo la tartanta. waa suuq cidlo ah oo xaalkiisu yahay kaligaa ku dabaalo. dhan kale Maxamed wuxuu aaminsan yahay in suuqa isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Afrika uu ka fursado badan yahay ganacsiyada kale, sanadaha soo socdan laga heli doono faa'iido badan. bilowgii shaqada shirkadda Maxamed waxaanu caqabada ah ayaa soo wajahay, wuxuuna u tafaxay sidii uu ku samaysan lahaa macaamiil cusub oo isticmaasha adeegga shirkadda. si uu arrintan u xaqiijiyo, wuxuu macaamiisha u keenay telefoonno raqiis ah. tiro yar oo qoysas ah ayaa iibsaday telefoonnadii. kadibna waxaa gudaha dalka Uganda ka bilaabatay in adeegga shirkadda si tartiib ah loo isticmaalo. markii Maxamed gacanta ku dhigay suuqa isgaarsiinta ee dalka Uganda, ayuu bilaabay inuu isku fidiyo suuqyada isgaarsiinta ee qaar ka mid ah dalalka Afrika. wuxuuna galay waddamada Gabon, Congo, Sierra Leone iyo Malawi. laakiin howlgalkan cusub wuxuu u baahan yahay xoolo badan iyo shaqo adag oo aan kala go'on lahayn. xilligaasi Maxamed wuxuu lahaa 2 shirkadood oo isgaarsiineed. midda koowaad waxay ka howlgashaa gudaha dalkiisa hooye ee Suudaan, waxaa lagu magacaabaa MSI. midda labaad waa tan hadda wadda isballaarinta. Maxamed ayaa iska iibiyey shirkadda isgaarsiinta ee MSI, wuxuuna lacagtii ku maalgeliyey shirkaddan isballaarinta wadda ee Celtel. markii uu galay Maxamed dalka Congo, waxaa ku dhacay jahwareer, waayo ma jirin meel oo xog buuxda ka heli karo oo wax qoraal ah lagama samaynin suuqa isgaarsiinta ee dalka Congo. waxaa kaloo dalka ka jiray waddo xumo iyo kooxo burcad ah oo abaabulan. sidoo kale markii uu galay suuqa isgaarsiinta ee dalka Sierra Leone, wuxuu la kulmay dagaalkii sokeeye ee ka jira dalka. waxaa dhowr jeer dhib xoog leh loo geystay shirkaddiisa, taa oo ku qasabtay Maxamed inuu dib uga baxo caasimadda Sierra Leone. laakiin kolkii dambe wuu ku laabtay kadib markii ay soo galeen ciidankii nabad ilaalinta ee ay u soo dirtay qaramada midoobay dalka Sierra Leone, waayo labada dhinac waxay baahi xoog leh u qabeen helitaanka isgaarsiin wanaagsan. Maxamed ayaa dhexda ka galay ummad madaxdooda baahan tahay, isla markaana caadaysatay cunitaanka xoolaha dadweynaha. waxaa dhowr jeer Maxamed laga dalbaday inuu bixiyo laaluush, laakiin waa uu diiday arrintaasi. si uu u kasbado qulubta macaamiishiisa, ayuu Maxamed bilaabay inuu waddamada ay shirkadiisa ka howlgasho ka dhiso dugsiyo si bilaash ah wax loogu barto, iyo isbitaallo si lacag la'aan ah bulshada loogu daaweeyo. wuxuu kaloo tababaro heer sare ah siiyey shaqaalihiisa. sidoo kale wuxuu wax baray bulsho badan oo ummi ahayd. dhammaan dadaaladani Maxamed waxay u keeneen faa'iido lixaad leh, oo waxaa kor u kacay dadka isticmaala adeegga shirkadiisa Celtel. wuxuuna nambarka isticmaala adeegga shirkadda gaaray sanadkii 2004 ilaa 6 milyan oo ruux, kuwa oo kala jooga ilaa 13 dal oo Afrika ah oo ay shirkadda ka howlgasho. waxaana shirkadda sanad walba u soo xaroon jirtay lacag gaaraysa ilaa $650 milyan. faa'iidadana waxay gaaraysay ilaa $150 milyan. intaan uu guul ah markii uu xaqiijiyey Maxamed, shirkaddiisana gashay waddamo badan oo Afrika ah, ayuu go'aan buuxa ku gaaray inuu iska iibiyo shirkaddiisa. wuxuuna shirkaddiisa ka gaday milkiilaha shirkadda Zayn ee laga leeyahay dalka Kuwait, wuxuuna ku iibiyey adduun dhan $3.4 bilyan. Maxamed ayaa markii uu iska gaday shirkaddiisa Celtel wuxuu aasaasay mu'asasada lagu magacaabo Mo Ibrahim Foundation, oo ah hay'ad khayri ah oo wax badan u qabatay bulshada Afrika, dhankan dhiirigelisa isla markaana abaalmarin caalami ah siisa shakhsiyaadka siyaasiyiinta ah ee Afrika ee dalkooda wax u qabtay, isla markaana kursiga kaga degay si nabad ah.